gargaarka hafashada in biyo lagu hafto ama biyo lagu dhex meerbeelo. Qodobka koowaad waa in si degdeg ah looga soo saaraa qofka meesha uu ku haftay. Qodobka labaad waa kama tajinta biyaha uu ku haftay. Far adigoo far afka ka gelinaya, macnaha qofka saa u matajiso biyaha afka waxaa ka gelinaysaa far soo u soo matago. 3 haddii kale qodobka saddexaad haddii kale carabka qabo oo gadaal u soo jiid, macnaha carabkiisa soo jiiday si uu ula laboodo. Macnaha labadan waxaa lagala jeedaa qofka inuu matagaa la rabaa. Fara dhunta ka geliso matag waayo maaha, carabka ka soo jiiday. Carabka soo jiido oo laboona oo matagaa markaas. Qodobka xiga, qodobka afaraad, u jiifi dhabarka oo madaxiisa ula dhinaca qoorta, macnaha madaxiisa waxaa loo qaloocinaa dhinaca madaxiisa u dhig dhinaca qoorta, macnaha madaxa la leexaa dhanka qoorta loo leexaa. Waa macnaha si garkiisa uu u eego cirka. Macnaha qofka saanoo kale loo qabanaa, madaxa gacanta ka saare, garkana kor u soo qaade iyo sidaanoo kale. Qodobka shanaad, sanka far iyo suul kaga qabo, macnaha sanka markaa ka qabaysid far iyo suul u qabee sanka ka xereeba. Qodobka lixaad, afka u geli oo xoog, macnaha afkiisa afkaaga gelinaysa oo xoog u afuuf ilaa aad ka aragto in sanbabadiisa ay neeftu si toos ah u gasho. Qofka sanka ka qabanay afka ugu neefsada sanbabadu si toos u gaaraya neeftaada. Afkaaga, macnaha qodobka toddobaad, afkaaga ka qaad afkiisa si ay hawadu u soo baxdo, macnaha hawada oksijiinka kugu jiray ku shubtay si uu ugu soo baxo kaarboon ahaan, si uu ugu soo baxo oksijiin kale u qaato. Marka waxaa laga rabaa inaad afka qaadid si hawadaada ugu baxdo. Daqiiqad gudaheed ku celceli 5 ilaa 10 jeer. Carruurtu waa sidoo kale. Qodobka sagaalaad, waxaa lagu dhahay carruurtu waa sidoo kale inkastoo ay
inkastoo xeeladahan yihiin macnaha caruurta waxaa lagu dhaawaa sidaas oo kale macnaha qafka weyn iyo qafka yar oo isku mid macnaha sidaasaa la wada yeelaa macnaha oo waxba kuma kala duwana. casharka xayga waa geli doonaa insha allah marka casharkan intaanu nooga